madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa jaariyada reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Sultanka Imaaraadka Carabta kala qayb galay munaasabad ballaaran oo aad loo soo bilay oo ay ku soo dhaweynayaan wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee socdaalka shaqo ku jooga dalka Sultanka Imaaraadka Carabta waxaana munaasabadan lagu soo bandhigay suugaan ka hadlaysa qiimaha wadaniyadu ay leedahay iyo guulaha Somaliland u hirgalay muddadii ay jirtay waxaana jaaliyada reer Somaliland muujiyeen dareenkooda wadaniyadeed ee ku wajahan sida ay qarankooda u garab taagan yihiin madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa jaaliyada reer Somaliland ee ku dhaqan Imaaraadka Carabta uga mahadnaqay kaalinta ay kaga jiraan dhismaha dalkooda waxaana madaxweynuhu uga xog warramay guulaha u hirgalay intii uu ku sugnaa dalka Sultanka Imaaraadka Carabta jaaliyada reer Abdulay oo ku sultan wadaninimo iyo halgan iyo dibudhis iyo waxtar ballaaran dadka loo leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin socdaalka iyaga imika dowladda Imaaraadka Carabta waa uga mahadnaqaynaa Sheekh Khalifa oo madaxweynaha dalka waa uga mahadnaqaynaa Sheekh Maxamed oo dhaxal sugaha waa uga mahadnaqaynaa رئيس الوزراء محمد راشد والله ما هضمنا كل حاجة برايم مينستر أو وزير كمحتوى أو يجر كوا كان فلان سيدي وعناي يسلوه لنا ذلكين يوحنا كوا هذا إنه يني رجلتي ولسيا كرسولي وكجوا كيرا هم الحديث كلام آد بموضوع لقى واحد كوا هذا وحيارها كلهم سن horta waxa aan ku hadlo koow waxaan ku Soomaaliland sidii sano ayay dawladahay shan madaxweyne doortay oo saddex doorasho isku bedeshay oo aan ka ciigeeska Afrika iyo Bariga Dhexe iyadoo aan la ictiraafsanayn ayay dalkeeda xuduud galbeed iyo bari oo ay koonfur doorasho gashay oo inteeda loo yeeyay dimuqraadiyad ay dawladda waa wada xajin karayeen oo haddana khilaafaadkeeda iyadoo xalisatay oo hore uga socotay waxay dhamaysatay wixii shuruuc ahaayeen dawladda rabay oo ciidan leh oo garsoor leh oo waxbarasho leh oo horumar leh kolba intii dhaqaaleedu ahaa hase yeeshee adduunku taa ma tixgelin waxa la ictiraafo looga eexday nin lagu doontay iyadoo ciidan ajnabi waardiye ka hayo oo dhowr boqol oo qof waardiye ka ay doorteen oo aqal lagu xereeyay oo aan kalsooni dad wadan oo aan dalkiisa xukumin oo ku tiirsan lafihiisa inay leeyaan dad shay ayaa la ictiraafay oo waliba dhalinyarada ku taliyeen bandhigista anagu taasaan diiday haddaynu wada hadlayno waxaan u baahanahay waxay ku dhalan tahay Somaliland oo qoonsataa baa wax lagu hagaagayaan bardataanka ka daya waxaan kaloo lagu xotarimayaa waxa u roon waa sharafta iyo karaamada kursiga caalamiga ah kama didin waa soo dhaweeyay Somaliland heshiis baa la gashay mid base ministry la gashay mid ganacsi la gashay hasay dadka la gashay ee Somaliland meel wali jooga ma waa maxariis maxbuus waa qofka aan socon karin ee aan meel kale teekin hadduu abidda joogo waa maxbuus oo waxa ka dhacaysa baasha inay qaamada oo meel u dhaqaaqan maray oo dalka ma dhex socon karo hayna ma iman karo hadduu Soomaaliya joogana baasaboorkii laga dhaxeeyo waa culuuro wax ku fudud wala waa tixgelisaan kaayagina ma tixgelisaan marka ummadda dhamma meel u baxdo ma laha marka dadka dhibaatada qaba haddaad gacan ka doonayso adigu bilowba baasaboorkooda aqoonsada horta waa muhiim ah waxaan u la tagayaa iyadoo garto caynkaas madaxdiisa rajo weyn oo ka qabanaysa suurtagal soo garabsado waxa دريك الخبر إن شاء الله لوان شباب الكلينا الكفر حنا أكثر تستعد واحد حوله واحد صقر منه ودي كان يريد سلو كم هذا وحبايب بري باينه حولها يجا لو فلانه نكاس يقول لك صاحبتي نوغير جيو هذا حولها ماشى برهطن ما بدنا نريه انت صار فلان اكبر من هذه واحد كل شيء ورقه بدر وبديه فضل ولا ما كان يمكن
waxaanu yeedhnaa mid walba dadkii qaabilsanaa inay iska hortagaan. waxaa kale oo madasha hadallo kala duwan ka soo jeediyey gudoomiyaha xisbiga mucaaridka UCID injineer Faysal Cali Waraabe, wasiirada wasaaradaha khayraadka biyaha Saleeban Cali Koore, qorsheynta qaranka Cawaale Ibrahim Shirwac iyo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka isku tagga Imaaraadka Carabta Ambassador Baasha Cawil Cumar iyo xubno ku hadlayay magaca jaaliyadda iyo fanaaniinta reer Soomaaliland. madaxweynuhu xasuumay anaga iyo Cabdiraxmaan Ciro wuxuu nagu xasuumay oo nagu warramay in xasuumadani timi naga codsaday inaanu safarkiisa raacno. Cabdiraxmaan wuu cudur daartay xumaan ku maqnaa hawl badan baa u taalay. marka waxa halkaas ka soo yeelan saddex xisbiba iyo baarlamaanka iyo guurtooda inay isku raacsan yihiin safarkan iyo heshiiskiisa xaqiisoodka ahaaba qof kastaba gurigiisa lagu soo celinaya waa inaan guriyeena hagaajisna waayo martida ka baxna ilaa 60kii marti bayna calankeena waa soo ceshanay insha Allah taala waa inuu kaga dhabaynaa iyo inta la geeyaa jaamacada carab geeyaa ee la geeyaa taasna inaga inagu xidhantay maanta waxaan idinku bishaareynaya xuduudka Soomaaliland waqti uu maanta ka sugan yahay 726 sanadood oo aan Soomaaliland ka shaqeynay waqti uu xuduudka Soomaaliland ka sugan yahay iyo waqti dawladda Soomaaliland ka awood weyn tahay iyo waqti ummaddu iskaga kalsoon tahay iyo waqti ummaddu iska raacsan tahay maanta ma jirto. ummadda Soomaaliland waa dad jawaab ka bixin karta cid alla cidii ka hortimaada danahooda gaarka ay u leeyihiin cidna duulaan kuma qaranka aan maanta goobjooga u haynaa waa qaran dhaqaaqi kara oo isku filan oo buuxiyay shuruudihii qaran uu lahaa. marka laga reebo waqtigii qarannimada Soomaaliland ay la soo noqotay 1990kii waqti ay ka exciting san tahay ama rajada Soomaaliland ay ka fiican tahay maanta inaanan anigu hore u arag. waxaan idinku bishaareynayaa dawladda aan xubinta ka ahay waxaan wali ku jirnay honeymoon balayna periodka aan ku jirno laakiin waxa muuqata ama saansaanteeda aan arkaya 9 bilood marka la gaaro inay wax dhali doonto aqoonsigii inuu meel dheer u soo joogo ayaa ii muuqda. maanta Soomaaliland dunida darafyadeeda ayaa laga hadalhayaa waxyaabaha afka qalaad lagu yiraahdo household in ay arrin Soomaaliland tahay magaca Soomaaliland ama New York Times ha noqoto ama Reuters ha noqoto ama South African newspaper ka soo baxaa noqoto Soomaaliland waxay ku jirtaa saaxadda adduunka maanta alxamdulillah waxaan ku aad ugu faraxsanahay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku martiyo abdullah waxaan soo dhaweeyay caawa farxad badan baa inaga muuqata waxaan filayaa in xafaalihii ictiraafku inuu noo soo dhow yahay insha Allah imaaraadkuna noqon doono ictiraafkii badan malaaynu raadinayna inuu Abu Dhabi malaadu ay fadhiyaan ay u eg tahay